بسم الله الحمد لله السلام عليكم أصحابتا channelkayga ku xiran waa markale walaashin Sara Cooking Channel iyo muuqaal cusub asxaabteeda maanta waxaan idin wadaa alaabtaas quruxda badan leh caysh iyo maraq waxyaabaha aan ka diyaariyay qaabkii aan u diyaariyay ka faa'iideysi wanaagsan khiyaralkan waxaa ku haystaa 2 koob oo bur ah 1 xabo oo ukun ah 2 qaando sokor ah 1 qaando leebita ah wax yar cusbo ah subagan oo ku soo dari doona insha Allah iyo caanaha boodarka ah heel yar harjeynayna si wacan ila socotaan insha Allah asxaabteeda haddana sida wada arkaysaan burkii waxaan ku soo darayaa xabadii ukuntaad waxaan kaloo ku soo darayaa sokortii qamiirsadii ama fiixsadii iyo cusbadii oo saxankii igu jiray waxaan kaloo ku soo darayaa 2 qaado caano ah caanaha gasaca oo boodarka ah caanaha haysato waa ku darsan kartaa jooskada iska leh 2 qaando ayaan ku soo daray asxaabay sida wada aragtaan waxaan kaloo ku soo daraa heel yar oo aan soo tumay waxaan kaloo ku soo darayaa subag arigi kadib biyo diiran ayaan ku soo qasay axbaabteeda insha Allah biyaha qabow ma aan kuleel zaid ma biyo diiran waa si fiican markii aan isku soo dhaxgaliyo aan soo xasho si fiican u soo qaso ayaan isku soo laabanina insha Allah asxaabay sida wada arkaysaan si fiican ayaan u soo xashay ceyshkii qaabkaas quruxda badan softiga ayuu ku soo baxay ma sha Allah haddana waan soo daboolayaa 30 ilaa 35 daqiiqo camal aan sugaa insha Allah intii oo noo soo qamiirayo waxaan sii diyaarsanayaa maraqii waxyaabaha aan ka diyaarin lahaa insha Allah sidaas wacan ila socda axbaabteeda asxaabay halkan waxaa ku haystaa hilib ari baradho kaarot barbarooni basal 2 nooc ah paprika filfisha shiidan coconut milky powder iyo xawaashi isku dardar ah haddan hilibka ayaan soo jarjaray baradhada ayaan soo fiiqay iyo kaaroodkii basasha waan soo jarjaray kabsar iyo toon ayaan isku soo tumay asxaabteeda waxaan rajeynayaa inay la wada socotaan haddana digsiga ayaan dabka soo saaray waxaan ku soo darayaa saliid xoogaa yar qiyaas igu filan waxaan haddana ku soo daray basashii sidaa wada aragtaan waan soo diyaarsaday cabaar markay basasha saarnaatay kadib oo ay isbedesho ma sha Allah brown camal noqoto ayaan haddana waxaan ku soo darayaa hilibkii aan soo diyaariyay oo soo jarjaray oo soo dhaqay hilib ari waay axbaabteyda haddana waxaan ku soo darayaa kabsartii iyo toontii sida wada aragtaan waxaan kaloo ku soo darayaa xawaashida isku dardarka asxaabi xawaashida anaa guriga ku diyaarsaday insha Allah mar ayaan idinkaga faa'iideey doonaa oo diyaarinay biidnillah dalatii xawaashida ka dhamaadeen waa suuqa laga soo gaday markii ay ka dhamaatay kadib ayaan diyaarsaday aan ku shubtay waxaan kaloo ku soo darayaa filfisha shiidan waxaan kaloo ku soo darayaa asxaabi sida wada aragtaan paprika waxaan kaloo ku soo darayaa 1 xabo oo maraq digaaga sida wada aragtaan qofkii aan xiiseynin ama aan isticmaalin cusbo ayuu ku bedelan karaa wax dhib ah ma lahan haddii dhanaan intaas ka badan aad sii rabtid cusbo ayaa ku sii darsan kartaa joyskaada iska leh ani laakiin intaas ayaa ugu filan ma sha Allah haddana hilibkii aan isdhaxmarnay waxyaabaha carfiska sida wada arkaysaan waan daboolaa asxaabay sida wada aragtaan wax kadib markay hilibkii waxyaabaha carfiskii isdhex galeen waxaan ku soo daray 5 bakeeri oo biyo ah qiyaastii si uu hilibku u bislaado sida taqaan asxaabay hilibku wuxuu u baahan yahay inuu karo si fiican u bislaado 5 bakeeri ayaan ku soo shubay bakeeriga shaaha lagu cabo qiyaastii 5tiisa oo biyo ah bakeerigan waaye asxaabay hadda inta sanad qaabkaas ayuu leeyahay bakeeri weyn maan waa bakeeriga caadiga shaaha lagu cabo 5tiisa oo biyo ayaan ku soo shubay marka xogaa biyahan ay ka dhamaadaan
ayaan ku darayaa baradhada. Sidaa wada aragtaan biyihii oo dhan wuu soo guursaday, hilibkiina hadduu isbedelay asxaabay. Sidaa wada aragtaan aadna ma u bislaanin laakiin biseel ayuu u dhow yahay. Hadda ayaan waxaan kusoo darayaa baradhadii aan soo jarjartay. xoogaa baradhada markii ay saarnaatay kadib bakeeri biyo ayaan ku darayaa haddan insha Allah si baradhada ay ugu soo karto, maraqna uu ugu noqdo. biyo kalena ma kusoo daraya insha Allah. haddii biyo intaas ka badan aad rabto waa ku darsan kartaa. waxyar markii baradhadii ay noo kartay kadib ay noo saarnaatay, sidaad arkaysaa maraqii waa noo karayaa. waxaan kusoo darayaa haddan hal qaando oo coconut milk powder ah. caaraf iyo tasti aad u macaan ayuu siinayaa maasha Allah. maraqa xataa wuu isbedelay, xataa maraqa dhan qurux culeys ayuu ka dhigayaa maasha Allah. qaab aslan maasha Allah. haddan waxaan kusoo daray axbaabteeda kaaroodkii oo aan soo jarjaray. ugu dambeyn asxaabi waxaan kusoo daray barbarooni basal cad oo aan qaab warwareega u soo jaray. marka ugu dambeys ayaan ku darayaa maraqa insha Allah. sidaas ayuuna diyaar ku yahay biidnillah. maraqayni qaabkaas ayuu ku dhayaa axbaabteeda. dabka ayaan u damiyay. haddana cajiinkii xaggiisii ayaan aadaynaa insha Allah. asxaabi cajiinkeeni sidaa wada arkaysaan qaabkaas arkaysaan ayuu noogu soo fiixay oo u qamiiray. zaaid ayuu isku bedelay sidaa wada arkaysaan. haddana waan soo kuuskuusayaa. saxanka markii aan soo saaray ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah. axbaabteeda waan soo kuuskuusay cajiinkii. saxanka ayaan haddana soo saaraya sidaa wada arkaysaan. haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow, please subscribe. haddii aa horey noola joogtani like, asxaabtaada iyo eheladaada usii share garee. waa idinkaga mahad celinaya sida wanaagsanaa mar walba ila socotaan axbaabteeda. wixii fikradaan xagga commentiga igu soo qora, fikradihiina waa ii muhiim. haddana waan soo fidinayaa cajiinka insha Allah. xabadda ugu horeysa ayaan soo fidiyay axbaabteeda. sidaa wada arkaysaan cajiin fis qof walba ayaa garanaya. haddana waxaan bilaabaa inaan soo dubo insha Allah. birta ayaa dabka ii saaran. waa cajiinkii aan fidiyay ayaan soo saaray sidaa wada arkaysaan. dhanka kale ayaan u gadinaya hadda axbaabteeda. dhinacii hoosaas ayuu noqday. dhanka kalena waa arkaynaa qaabkii uu kusoo baxo insha Allah. saliid yar oo aan aad u badnayn ayaan kusoo warwareejiyey. haddana dhanka kale ayaan u gadinaya axbaabteeda insha Allah. dhinaca kalena qaabkaas ayuu kusoo baxay quruxda badan leh maasha Allah tabaaraka Allah. xabadda labaad ayaan haddana kusoo ridaya insha Allah. qaabkaas ayay iyadana maasha Allah noogu soo bislaanaysaa asxaabteeda. dhinacii kale ayaan u gadiyay. dhankan waa dhankii hoose maasha Allah. waa arkaysaan cajiinka sidoo kale ilaab u qamiiray oo u kala baxayo maasha Allah. haddana markii aan soo dhamay saxanka aan kusoo diyaariyo ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah. ugu dambeyn qaabkaas quruxda badan ayuu kusoo baxay maasha Allah. asxaabay wixii hadal idinka ayaa idinka sugaya insha Allah xagga commentiga. kolay testiga maasha Allah qofkii tijaabi un baa ka hadli karo. ceeshka qaabkaas ayuu u yaalaa. mooska liinta wax ka maqan ma lahan maasha Allah tabaaraka Allah. intii taqaan ilaahay u ziyaadiyo aqoontooda. intii aan aqoonin soo dhawaada kana faa'iideysto. idin soo dhaweynaa gacmo furan maasha Allah. asxaabi waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. jazaakumullahu khayra. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. iyo muuqaal cusub oo xiiso leh oo inoo xiga kan insha Allah.